The manager is in charge of the company. Maamulaha ayaa mas'uul ka ah shirkadda. Ku soo dhawow channel-keena iyo muuqaal cusub. Ereyga ugu horeeyo bill. Ereygan waxaa loola jeeda qarashaad ama lacag loo bixiyo si joogto si loo helo adeegyo kala duwan sida korontada, biyaha iyo wixii la mid ah. Inta badan qarashkan waxaa loo dhiibaa bishii ama sanadkii hal mar. Haddaba aan ereyga jumlad ahaan u isticmaalno si aad si fiican u fahantid. She paid the bill. She paid the bill. Ayada ayaa dhiibtay qarashka. Ayada ayaa dhiibtay qarashka. The bill is $50. The bill is $50. Qarashka waa $50. Qarashka waa $50. Let's split the bill. Let's split the bill. Aan qaybsano qarashka bixintiisa. Aan qaybsano qarashka bixintiisa. Waa hagaag haddaba ereyga xiga. In charge. In charge. Waxaa loola jeeda inuu qofka mas'uul ka noqdo hawl ama mashruuc ama xaalad gaar ah loogana baahan yahay inuu uga soo baxo xilka si hufan. Haddaba aan ereyga jumlad ahaan u isticmaalno. I am in charge of the office. I am in charge of the office. Aniga ayaa mas'uul ka ah xafiiska. Aniga ayaa mas'uul ka ah xafiiska. The pilot is in charge of the plane. The pilot is in charge of the plane. Duuliyaha ayaa mas'uul ka ah diyaaradda. Duuliyaha ayaa mas'uul ka ah diyaaradda. The manager is in charge of the company. The manager is in charge of the company. Maamulaha ayaa mas'uul ka ah shirkadda. Maamulaha ayaa mas'uul ka ah shirkadda. Ereyga xiga ee saddexaad. Threaten. Threaten. Waxaa laga wada ereygan in lagu godiyo ama lagu hanjabo taasoo micnaheedu tahay inaad ku jirto halis taasoo laga yabo inay ka soo gaarto dhibaato. Haddaba aan jumlad ahaan u isticmaalno ereyga. He tried to threaten me. He tried to threaten me. Wuxuu isku dayay inuu ii hanjabo. Wuxuu isku dayay inuu ii hanjabo. They tried to threaten to call the police. They tried to threaten to call the police. Waxay ku hanjabeen inay wacayaan askarta. Waxay ku hanjabeen inay wacayaan askarta. They threatened to leave. They threatened to leave. Waxay ku hanjabeen inay baxayaan. Waxay ku hanjabeen inay baxayaan. Ereyga ugu dambeeya waa blame. Blame. Waa marka qof lagu eedeeyo ama looga shakiyo inuu mas'uul ka yahay fal ama xaalad xun oo dhacday. Aan jumlad ahaan u isticmaal. Don't blame yourself. Don't blame yourself. Naftaada ha eedeynin. Naftaada ha eedeynin. I blame you. I blame you. Adiga ayaan ku eedenaa. Adiga ayaan ku eedenaa. Waa hagaag waa inta